هاي صفة على تاجنو يا تذكر كتشعل غراضة هذا أركان بالغراض هذول تاجن شيء أو فرحان يا هاي كلام الغراض هذا وجي دبعته هو جستي أنا أركان هذول تاجن الصعدة الحمد لله أنا دمانين يا والله هذا أنا عريان الصعدة يا ما قلت أنت كنا عورنا إنك نحن أنت كنت عورنا إنك فرحان أيوة صعدة يا مثلا صعدك وكمل هاي حوارها تلك أنا غيرت تلك وفرفرية سجى فرفرية يا شيفكو عذرك غير غالانية صعدكم عافاتك غير غالانية يا أي محل شيء سعيدين كاي هذا رضاي أنت كنت عارف شيء سه هنا سؤال شيء هنا سعيد شيء سه يا أنا ما أنطقي هنا فعلاً دون إن شاء الله إلهي لما هذا إشكاله هنا تاجنت هاي أصعدته مرة إن شاء الله تعالى الحاجة كسان دونته صفة على الوجود وين دونا إن شاء الله هذه أدنى وصل وين نعرفها هاي sidaan la socono deegaanada Puntland waxaa ku soo batay kufsiga loo geysanaya dumarka masaakiinta ah ee deegaankaas jooga kadibna dil loogu darayo adduunyada kufsigu waa ka jira wax jira waayo reebka dumarka lagu sameeyaa faalka dumarka dhanahi adduunyada way ka wada dhacaan laakiin waxaad moodaa deegaanada Puntland in arrin kale oo ku cusub ay ku soo korto ah dilka gabdhaha markii la farxumeeyo ee la kubsada kadib Puntland waxaan ku ogahay dad ahlu sharafa ahlu diina dhaqanka Soomaalida si fiican u yaqaana يعني أذك أيوة هالكاس كان كوجا هاي أو نبض دكش قيا أو دنت الدد كودي ديجا كنت دكش قيا تمركو وجبرت النين والبا حاس النين والبا هوية النين والبا إيدة النين والبا آية النين والبا تمركو مالكم مهران شرفت النين كرجع ولا هو تمرك يا شرفت النين كرجع ولا هو تمرك لين عكستوا تمرك ويا إلى علمه يحق دورد وحنا نجس هارن إن شي شرف له لو إلى عليه لكن سيترو كوي نبكة جيستي دلي كفصلي هذا يجرو واين وحلا ربي كوي معمول كهالكاس جوجي دول نمدي معمول كشيجني إن كرتان أو كواس عقابان هذا كواس وجرو واين كجابين وحلا دوني علماء iyo aqoon-yahanintu ila dukuur bulshada qaybeeda kala duwan in arrintaas ka dhiidiyaan ee haday mar dhacday ee laba dhacday mar saddexaad dhacday inaysan mar saddexaad iyo mar afraad kale aysan dhicin hadii bulshada la waayay hogaamiye dhaqameedyada beelaha matala hogaamiye dhaqameedyada ayaa loo baahnaa arrintan inay wax ka qabtaan oo arrintaas foolxumada badan oo dhaqanka Soomaalida ku foolxun oo ilaa dukuuron yahay diinta ku foolxun oo bini'aadamada ku foolxun oo sharafta qabeeyilka meesha degan iyo dadka meesha degan ku foolxun in soo noqoto aad baa horta ugu xumahay wax ka dhihideedana wax baan ku leeyahay waa dad Soomaaliyeed oo wanaagooda jecelahay xumaantii sameeyano in laga wacyi geliyo baahan sidaas daraadeed dadkii culimada ahay ee wax garadka ahay ee ahlu aqliga ahay way joogan way buuxaan waxa fool xumaa in gabar inta la farxumeeyo la dilo xabad lagu dhufto halkii kii nacaska sida la cinqaabi lahay in qaab qabiil ama qaab heeb loo soo badbaadiyo oo sharci aan la horgeyn taas ayaa waxa ah geeri labaad iyo bahdil labaad iyo waxaan aqliga bil aadamku oo san qaadan karin gabadha maanta uu dilay ama uu maanta kufsaday rag bay la dhalatay rag baa dhalay hadii aad taas u cadaalad fal waasid midaada kama laan dheereysana kama qabiil fiicna birita lagu sameeynaya mid adigu waa dhashay ama mid adigu ilaa dukuuro ay kula dhalatay ama mid ku dhaxad ayaa biri lagu sameeynaya wuxuuna waxa waay wax jamaca oo umada soo wada saamay karo waxaan isleeyahay in laga wada hortagay wanaagsan ya in laga wada hortago ayaa wanaagsan oo midka dulliga ah fadaaxadaha soo kala sameeynayo meel loogu soo wada jeesto kufsigu
diinta islaamku ma qabto dhaqanka islaamku ma qabo oo dhaqankeena suubana ma qabo oo meel adduunyada bini'aadamada ka soo galaya ma jirto waxaase ka sii xun markii dil la raaciyo waxyaabaha sidaas si looga waantoobo marka ay dadku uga waantoobaan ee dhalinyartu uga waantowdo oo ummaddu markay ninkii maaga wax sameeyba oo waxama in culimada iyo dadka wax hogaamiya iyo maamulka meesha ka jira iyo waxgaradku in ciqaab adag ay ka soo saaraan oo ugu yaraan ilaa hadaa maanta la yiraahdo 10 sano xabsi lagu xukumayaa waxa macna ma sameynayso hadii la yiraahdo 100 jeedal baa lagu dhufanay wax ma sameynayso war waxa inay dabar go'aan baa loo baahan yahay ma aha inay soo noqnoqdaan ma aha sharafna ma aha waxaan rajaynayaa intaan garto iyo in ka badan dad gartahay meesha way joogaan inta aan garto anigu in ka badan ayagoo diiniga badan oo garashiga badan oo aqliga badan oo dhaqaniga badan meesha way joogaan waxaan rajaynayaa in arrintaas wax laga qabto ee fadeexadaas soo noqonayso deegaanka soo noqonayso ee meesha ka baxdo